soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo qabiilka la yiraahdo randiile oo yacni aan aqoonta randiile aan badino meeshaas waa Soomaaliya xaggaasna waa Itoobiya meeshana waa Kenya saa u jeedid meeshaas maaragtay waa u jeedaa Kenya waxa weeye waa NFD weeye Soomaaliya ay ku qoran tahay waxaan rabaa inaan ka hadlo randiiluhu wuxuu u dhaxeeyaa waa ka halka dega wuxuu agdegaa like Turkana buu agdegaa Booran iyo waxa uu u dhaxeeyaa Samburu labadaba waa Kushiitig Oromo ah waay marka dhulkan horta Kenya waxa asal ahaan jiray dad Kushiitig gaaba lahaan jiray dadkan horta Kukayada iyo waxa keenay Ingiriiska soo keenay oo ku soo celiyay xilligii gumaysigu keenay marka haddaad u jeedid dhulka barkii Kenya waxa iska leh dadkan la yiraahdo Kushiitig la yiraahdo baaba deganba hadda siday tahay waxa ku soo haray qabiilkan Turkanaha la yiraahdo Kalenjin iyo Masaayda waa isla naqaanayo Kukay laba saddex qabiil oo kale oo meesha degan waa keeni doona cidda ay galaan iyo cidda yihiin Turkana Kalenjin iyo Masaay waa keenaya iyagana insha Allah randiile marka dad Soomaali ah waaye wax yar oo waana ka sii wadaynaa meeshan waa u jeedaa waxa ku qoran they are about 64,000 oo randiile ah baa ku qoran living in Kenya يعني waxa waaye the Rendile people are nomadic pastoralistic Cushitic speaking ethnic group inhabiting the northeastern province Kenya waxa kalan sii raadinayna sibla hada the Rendile ووجد inay yihiin the Rendile descended through the Cushitic family lines with the Somali people taas meeshan waxa waaye site oo ka hadla waxa waaye oo scientific ah waa ujeeda yani waxay la qabiil yihiin Soomaalida la qabiil yihiin Soomaali weeye dadkan when Somali people were traveling from the South Canal through Ethiopia, the Somali people choose to go through Somalia for good يعني cunno raashin inay uga helaan dadku Soomaalidu yani way sii socoto Soomaaliya aad kor bay deganayeen Soomaalidu iyo Kenya hoos bay deganayeen marka wada Rendile people refused to go with them way ka baxeen way diideen inay raacaan Soomaalida and separate their present homeland around marka waa u jeedaa waxay leeyihiin yani markii hore inay Soomaalida waa isku dad bay dadku ahaayeen marka korkaas hoos bay deganayeen way diideen marka inay soo raacaan